wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaa ku soo dhowaada barnaamijkeenna xaqiiqo raadis. waa barnaamij aanu kaga hadli doonno xaqiiqooyinka jira iyo xogaha rasmiga ah. barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa ciidanka Itoobiya oo soo galay Garowe iyo Itoobiya oo saldhig military iyo safaarad ka samaysanaysa Puntland. haddaba waa maxay ujeedada tallaabada ay Itoobiya qaaday iyo madaxweyne Danay oo xiriirkii u gooyay Xasan Sheekh kana dhigay Puntland gobol madax bannaan. qodobada iyo qodobo kale oo caalamiyan ku soo qaadanaynaa barnaamijkan ku soo dhowaada. waxaa intaynaan bilaabin barnaamijka fadlan barnaamijkan iyo moogtay channelkan cusub subscribe gareeya. waxa weeye channelkeena labaad oo aan kaga hadli doono wararka dabagalista iyo baarista wararka iyo xaqiiqooyinka jira, xaqiiqa raadis iyo xogta rasmiga ah ayaana la yiraahdaa. yani waa investigative moogtay waxyaaba baaritaanada ku soo sameeyno ay xog rasmi ayaan had iyo jeer aad ka heli doontaa. marka channelkeena cusub subscribe tasaar fadlan. waagaag aynu ku bilownay caawa waxaa madaxtooyada Puntland lagu soo dhoweeyay saraakiil sarsare oo ciidanka Itoobiya ka tirsan. waxaana soo dhoweyntaasi u sameeyay markaa xaflad madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaana la sheegay markaa wafdi heer sare ah oo markaa sarkaalka ku sareeya ciidanka Itoobiya iyo markaa saraakiisha dhinaca sirdoonka iyo markaa saraakiil kala duwan oo markaa ka socda Itoobiya ayaa haatan Puntland markaa xalay toole ay soo dhoweynta ballaaran ay u sameysay. munaasabadan ayaana lagu sheegay mid markaa heshiisyo badan haatan lagu kala saxeexday, taasi oo ah baa la yidhi sidaan xogo rasmi ah ku helayno in markaa Itoobiya ay ka furan doonto Puntland saldhig ciidamo military ay Itoobiya iman doonaan, sida oo kale markaa ay furan doonto safaarad ama xafiis markaa ka shaqayn doona isku dubaridka labada dhinac markaas ama labada wadanka Itoobiya iyo markaa gobolka Puntland ay yeelanayaan. haddaba tallaabadan ay haatan qaaday Itoobiya iyo ujeedada iyagu ay ka leeyihiin maxay tahay? dhinaca kale Puntland iyadu tallaabadan ay qaaday maxay iyaduna ka leedahay? horta waxaa la sheegay xafiiskan la furtay haatan Itoobiya inay ahaanayso safaarad rasmiya. dhinaca kale waxaa la xaqiijiyay in madaxweyne Danay ballanqaadkii markaas uu sameeyay inaanay Puntland la shaqayn doonin Xasan Sheekh maamulkiisa oo ay ka goosanayaan ayuu kaga dhabeeyay. waxaana haatan la sheegayaa in ay madax bannaani markaasi ku dhawaaqayaan oo markaa hawshii madax bannaanida ay ku jiraan oo gobol madax bannaan oo aan shuqul ku lahayn markaasi arrimaha Soomaaliya oo ka madax bannaan ayuu markaasi noqon doonaa baa la yidhi. waxaana tallaabadan horseed u tahay baa la yidhi markaa dhaqdhaqaaqyada uu markaa madaxweyne Danay samaynayo ee uu markaa ku xaqiijinayo inay Puntland ka madax bannaan tahay maamulka Soomaaliya. haddaba waxa la sheegayaa tan inuu kaga argoosanayo horta Danay dhinaca moogtay Xasan Sheekh oo markaa ay xafiilta badan iyo moogtay arrimo badan oo aad markaa u nacbaystay u kala kulmay. waa qodobka koobaad horta waa kii ra'iisul wasaaraha doonayay markaasi Danay markii uu madaxweynaha waayay waxa uu markaasi ka codsaday baa la yidhi in Xasan Sheekh uu ka dhigay ra'iisul wasaarihii markuu waayayna yacni in xafiis kale oo muhiimad loo dhiibo madaxweyne Danay intiiba moogtay wuu ka waayay baa la yidhi. kadib wada shaqayntii moogtay ay wada lahaayeen iyo saaxiibtinimada horta halkaasay ku burburtay. markii dambe waxay Puntland moogtay gaadhay go'aan ah in Xasan Sheekh maamulkiisa iyo moogtay maamulka Soomaaliya ay markaa u jaraan xiriirka. haddaba markii ay moogtay iska horimaadkaas u dhacay kadib waa kii madaxweyne Danay cararay ee dhinaca iyo Itoobiya tagay. waxaana moogtay la kulmay dhinaca federaalka saraakiil ka tirsan iyo mas'uuliyiin ka tirsan. waxaanu markaasi ay go'aansatay Puntland in ay noqoto gobolka madax bannaan Soomaaliya. tii ayaana haddaba haatan markaasi kaga dhabeeyay jidkeediina uu markaasi ku taagayay madaxweyne Danay waxaana ku dhawaaqaysaa markaa Puntland madax bannaan. haddaba dhinaca kale Itoobiya iyadu waa maxay ujeedada ay leedahay? Itoobiya horta taariikhiyan waa tii berigii hore faragelin ku hayn jirtay Soomaaliya, laakiin 5 sano ee ugu dambeysay farmaajo xilka hayay waa kii moogtahay faraha kala baxday oo moogtay laba dowladood bas arkaya faragelinta xagga maamulada iyo waxaas dhan waa tii la joojiyay. laakiin haatan markii Xasan Sheekh xilka qabtay ee farmaajo ka degay xilkii ka degay waxa halkaasi markaasi ka bilaabmay is-afgarasho waa siyaasadeed oo markaa haatan ka dhaxeeya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. waxyaabaha lagu kala booday waxaa ka mid ah in taageerada uu Xasan Sheekh siiyay Masar
iyo booqashadii xitaa Masar ku tegay iyo markaa masaaridu ay haatan iyo xasan sheekh ay xiriir dhow leesheen oo markaasi iskaashi oo kida moogtay shirka jiraayada ay qabteen lagu qabtay moogtay markuu tegay Masar ku dhawaaqay in arinta biyo xidhaanka markaasi Soomaaliya ay aanay aqbalaynin moogtay talaabada ay qaadaysa Ethiopia ee ah inay kaligeed iska buuxsato biyo xidhaanka oo ay Masar moogtay inay wada shaqeeyaan ay tahay aduu si kasta ha ahaatee Masar iyo markaasi Soomaaliya ayaa markaas isku soo dhawaashay taa darteed bay Ethiopia ka booday waxaanu isla markiiba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isaguna u bilaabay inuu Puntland soo dhaweeyo oo danayo boodsan oo halka taagan markuu arkay ayuu soo dhaweeyay saa darteed waxa uu bilaabay markaa in meelaha docjilcsan uu ka weerarayo markaasi maamulka xasan sheekh oo bilaawdo Ethiopia waxaana haatan markaasi ay noqotay in ay Puntland horta iyada ay sideeda uga dhigaan maamul madax bannaan oo ay ka aqbalaan madax bannaan ay wataan safaaradan haatan ayaa loo furayaa baa leeyahay qodobka kale dhinaca kalena koonfur galbeed waa ka moogtay lafta grade marka la soo dhaweeyay isagana sidoo kale saraakiil ciidana tagay marka ka tirsan Ethiopia marka waxay haatan doonaysaa in ay dhinacyada ka rifto maamulka moogtay xasan sheekh baa la yiri Ethiopia si uu bila awood u noqdo iyada oo Ethiopia toos wax directly uma weerarayso siyaasaddan waa mid moogtay dahsoon oo dadka siyaasadda falaqeeya iyo moogtay wax garad isla fahmayaan laakiin Ethiopia iyada haatan waxay leedahay weerarkii al-shabaab ay nagu soo qaaday bay leeyahay dhinaca iyo dheer ahaa ayaa moogtahay taasi ay ka hortagaysaa haatan arrimaha ammaankan ku sugaynaa bay leeyihiin laakiin xafiiskan moogtahay la furayo ayaa la yidhi wuxuu noqonayaa mid safaarada kaasi oo marka ay Puntland dee gobol madax bannaan inuu yahay ama waddan madax bannaan ay Ethiopia ugu aqoonsanayso arrinta muranka ka taagayna taasi weeyaan si kasta ha ahaatee dhinaca Soomaaliya weli hadda wax wari kama soo bixin waxaa la sheegayaa haatan in ay markaa noqonayso mid ay labada dowladood ee Soomaaliya iyo markaasi Ethiopia ay madaxa iskula geli doonaan oo waliba mid walba mid gutaag oo bilaabi doono xiisaduna ay cirka isku sii shareeri doonto bal waynaga doonaa wixii kale ka soo kordha barnaamijka intaas ku dhayahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo